arlada adilagu aamino umada uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko min xilqaaday qadiihoy min xilqaaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعند وضيال كسر دوادا برنامج كتحراع ورركا وهذا يوكلات كذا وطن سوم نيوز تي في حرونته وكل هي مقالة مقدسة. برنامج كقضاء بدأت كدوان دونتان وحقيبك مسؤولين الصومالي لان قبل كسول أيها وحي كهاد لان حالة الديان كتكرق قبل كسول وحينا تلمامين إن عتوبية كترسن عدم الصومالي لان هل كاسيا يكسو جيهين dhanka Puntland iyana waxaa daawan doontaan waraysiyo la xiriira dagaalka deegaanka ka tirsan gobolka Sool ku dhexmaray ciidamo ka kala tirsan Puntland iyo Somaliland waxaa daawan doontaan waraysiyo la xiriira arrimahaasi oo aan la yeelanay Somaliland iyo Puntland mas'uuliyiin ka kala tirsan sidoo kale qodobada kale aan idin hayna idina aad ku daawan doontaan waxa qaybka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa midowga Afrika AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa waxay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi waxaa daawan doontaan waraysi arrimahaasi la xiriira oo aan la yeelanay taliyaha ciidamada xoogga dalka ee gobolkaasi Colonel Tawane Ahmed qodobada kale aan idin hayna waxa qaybka kulan maanta Muqdisho ay ku yeesheen rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa waxay eedeyn ballaaran u jeediyeen wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka Soomaaliya maxaa ku soo beegay in mas'uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliya xilka uu ka qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wasiirkii hore ee wasaaraddaasi ay eeden xilligan u jeediyaan barnaamijka ayaad iyana ku daawan doontaan warbixino iyo waraysiyo arrimahaasi la xiriira sidoo kale waxaad daawan doontaan arrimihii ay ku eedeeyeen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasiirkii hore ee xilkaasi hayay rugta ganacsiga oo si faahfaahsan ugu warbixinayo agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha mudane Cabdi Abshir Dhoore sidoo kale qodobada kale aan idin hayna waxa qayb ka dawladda Soomaaliya ayaa 600 askari waxa ay geysay gobolka Baay maxay tahay qorshaha dawladdu ay ka leedahay iyana barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen waxqabadka dawladda ay hogaaminayaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxaa daawan doontaan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho oo aanu ku xog wareysan doono barnaamijka tixraaca wararka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa uu kulan la qaatay ardada wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala guud ahaan Puntland gaar ahaan magaalada Garowe maxaa looga hadlay kulanka waxaa daawan doontaan wariyahayaga Farxiye Maxamuud Yuusuf oo arrimahaasi inoo faahfaahin doonta sidoo kale madaxweynaha waxa uu booqasho ku tagay qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Garowe waxa uu kulan la yeeshay salaadiin waxgarad iyo cuqaal ka soo jeeda deegaanadaasi iyana barnaamijka ayaa arrimahaasi kaga bogan doontaan qodobada kale aan idin hayo waxa qaybka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa mas'uuliyiin ka tirsan waxa ay gaareen magaalada Cadaado waraysiyo iyo warbixino arrimahaasi la xiriira ayaad iyana barnaamijka kaga bogan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba
amada haddi lagugu aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ina adeerto ay furan idinkuma arkaysid ina adeerto min xilkaaday eed qadiihoy min xilkaaday waa hagaag daawadayaal iminka qadka taleefanka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa si toos ah ugu jira gudoomiyaha gobolka Sool ee Somaliland Cabdi Khayre Dirir gudoomiyaha ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin aad iyo aad baan ku salaamayaa wariye xaaladda deegaanka gobolka Sool aad iyo aad bay u fiican tahay 24 la soo dhaafay wax dhibaato oo ku jiraan hadda ma jiraan maxaa ka jira in ciidamo ka amar qaata Somaliland halkaasi ay weerar ku qaadeen waxa gacanta ku haya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo mataqaanaa shacabweynihii deegaanka Tukarraqeed iyaguna deganaa mataqaanaa dadka deegaanka Tukarraqeed si la socoto magaalada Tukarraq waxay kamid tahay mataqaanaa deegaanka gobolka Sool waa magaalooyinka mataqaanaa xuduudda ku dhow marka waxa hadda ku sugan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaa beega gardarrada maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland oo ku caan baxay had iyo jeer inuu soo gardaraysto dhulka Jamhuuriyadda Somaliland had iyo jeerna ku soo qaada gardarrooyin iyo dhibaatooyin u geysta gardaamooyin shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee deegaamada xuduudda ku teedsan in badan Jamhuuriyadda Somaliland oo ka gaabsanaysay waxayna markasta ay adeegsanaysay ama uu ahaa mataqaanaa istiraatiijiyadeedu in si nabadgelyo wax kasta lagu xaliyo haddase waxaanu diyaar u nahay marka hore diyaar aanu nahay inaan xuduudda si nabadgelyo ah si ilaashano cid kasta oo kusoo xadgudubtana waajibaadka qaranka la farayaanu ka qaadano haddana waxaan ku leeyahay oo ku xaqiijinaya inaan ku suganahay deegaamaha anagu aanu leenahay anaguna aanaa duulin dowladana aanaa ku duulin dhulkana aanaa ku duulin meesha aan joogana ay tahay deegaankeedii waa gartay deegaankaasi horey waxaa gacanta ugu hayay ciidamo ka amar qaata Puntland maxaa xilligan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ku sugan yahay deegaano ka tirsan Puntland ku soo beegay in ciidamo Somaliland ah deegaankaasi ay weerar ku soo qaadaan oo ay la wareegaan ciidamada Somaliland dal shisheeyana Puntland kuma qaadin deegaan kalena ma tegin waa deegaankii gobolka Sool ka mid ah Jamhuuriyadda Somaliland waxayna joogaan deegaankoodii joogaan weerar iyo mataqaanaa wax duulaan ay dal kale ku qaadeen ma jirto waa ciidan ku sugan deegaankii mataqaanaa ay ka tirsanaayeen mataqaanaa ay sheeg haddii Ilaahay ku roon yahay ku jiray Jamhuuriyadda Somaliland dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo soo socodka dadka iyo gaadiidka ee deegaankaasi waa sidee deegaanka Tukarraq haba yaraatee wax ka bedelay ma jirto gaadiidkii u kala soconayay Tukarraq iyo magaalada caasimadda Laascaanood iyo deegaamada kala gobolka iyo dalka intiisa kala waa caadi haba yaraatee wax ka bedelay oo caqabad oo ku timid noloshii dadka iyo tii gaadiidka iyo tii kale ee situationka caadiga ah haba yaraatee ma jirto waa lagu nabad qabaa wax dhibaataa kama jirto shacabku reer Somaliland waa shacab reer Sool ciidamaduna waa ciidamadoodii wax dhibaato hadda aan kaaga sheegi kara haba yaraatee oo deegaankaasi ka jirta ma jirto waxaa tilmaantay in deegaanka Tukarraq ciidanka Somaliland iminka ay ku sugan yihiin uu yahay gayigoodii waxaan ogsoonahay in horey ay ugu sugnaayeen cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland
deegaanka Tuaraq ma iminka ayuu noqday dhul Somaliland ah horay Puntland u haystay hadalkaagu sidee loo qaadan karaa maanta ma noqon shayna ma noqon wuxuu noqday 100 sano ka hor ayuu ahaa intii mataqaana ay sheeg ilaahayba dadka ku uumay wuxuu ahaa deegaan ay joogaan dad reer Somaliland ciidamada Puntland ayay ku joogeen haddii ay ku reer Somaliland soo socoto waa dal xor ah oo waxa weeye waxyeedii Ingiriis qaatay 1960kii markii dhammaan midoogii Soomaaliya labadii gobol ee Soomaaliya iminkana waxa weeye waa dal madax bannaan oo Jamhuuriyadda Somaliland la soo noqotay madaxbannaanideedii afkii shacabna laga qaaday loogu codeeyey waxayna had iyo jeer Somaliland ay ku haaqaaday ama ay mataqaana ay ku caanbaxday nabadda iyo xasiloonida inay kula noolaato dowladaha deriska ah haddii ay markii hore ciidan maamul Puntland ay joogeen waxay ku joogeen haddii ilaahay ku sharci darro ah iyadoo ay Somaliland ilaalinayso inay wax kasta ku xaliso nabadgelyo iyo mataqaana xasilooni haddeerna waxa weeye magaalada Tuaraq oo saa hore ugu sheegay waxay ka mid tahay degmada gobolka Sool ciidamada joogaan waa ciidamadii Jamhuuriyadda Somaliland waxayna joogaan deegoodii iyo suwaadkooda qarandeeda gudanayaan wax hadda ka jirtaan ma jirto haba yaraatee deegaan ciidamo kala joogaan oo ka mid ah Jamhuuriyadda Somaliland ma jiraan saa la socoto qaatumo maamulkii qaatumo iyo Jamhuuriyadda Somaliland wada hadal baa dhex maray wayna dhamaadeen wayna heshiiyeen hawshaasina waxay ku dhamaatay heshiiskii aad maqlaysay ay galeen maamulkii qaatumo iyo Jamhuuriyadda Somaliland ciidamada Somaliland waxaa ku sugan dowladda Somaliland maamulkeedii iyo ciidamadeedii baa ku sugan si nabadgelyo meesha ku joogaan haddeerna waxaan ku cadaynayaa haba yaraatee inaanay jirin deegaamo ka mid ah gobolka Sool oo ciidamo kale ay ku jireen aan ciidamada Somaliland aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool ee Somaliland Cabdi Khayre Dirir oo qadka telefoonka ee magaalada Laascaanood iigu waramayay aad baad u mahadsantahay gudoomiye hawlaha arlada hadii lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko min xilqaaday eed qadiihoyo min xilqaaday dhanka kale hadaanu eegnana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa kulan waxa uu la qaatay ardada wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Garowe ee caasimadda Puntland madaxweynuhu waxa uu booqday qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Garowe sidoo kale waxa uu la kulmay isimada iyo waxgaradka deegaanada Puntland wariyahayaga Farxiye Maxamuud Yuusuf oo ku welinaysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya socdaalka lagu magac daray socdaalka nabadda ayaa arrimahaasi inoo faahfaahinaysa Farxiye haye waa tahay aad baad u mahadsantahay Xasan Kaahiye madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay ardayda wax ka dhigata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dowlad goboleedka Puntland waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku bogaadiyay dhammaan ardayda wax ka barata sida wanaagsan ee ula jaan qaadayaan waxbarashada mas'uuliyiinta halkaas ka hadashay hadaan eegnana Kaahiye waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Puntland iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Garowe guud ahaan aqoonta Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha wax laga bedeli karo mudane madaxweyne dhibaatada ammaanka dhibaatada dhaqaalaha dhibaatooyinka faraha badan
ina haysta oo ina soo maray haddaanan aqoonta wax ka bedelin lagama yaabo in isbeddel dhaco mudane madaxweyne waxaan codsanayaa in tacliinta sare awood la saaro sida tacliinta kalena awood loo saaro waxaan codsanayaa in linkage badan loo sameeyo hayaan ka hayaan halhaydiyo qabyaalad ka hayaan hayaan ka hayaan halhaydiyo qabyaalad ka hayaan hayaan ka hayaan hamrashada danguud ka hayaan hayaan ka hayaan ka hayaan horaan u barto howey dhaxashee ka hayaan dalideediyey ban abaan ahayn biyo qaadashooy dabinka dhalay hooyaa sheegtay macnaheeduna waxa weeye haddii hoggaanka dowladnimo la keeno ummadda in loo sameeyo qorshe lagu hayaamayo 5 sannadood haddii 5taas sannadood habeen iyo maalin la shaqeeyo waxaynu tegaynaa dabinkeeda leh in la yidhaahdo oo laga dabayo oo run loo sheegay maanta waxa weeye 13 jaamacadood oo maanta talayna martida u nahay ay ka mid tahay ayaa Puntland ka jira oo waliba tayo sare waxa kaloo jira dugsiyada dhexe dugsiyada sare 4 secondary kaliya ku lahaayeen maanta waxa weeye 96 dugsi sare ayay leedahay Puntland dugsiyada dhexe waxay ahaayeen 12 bay ahaayeen 12 dugsi dhexe bay ahaayeen maanta waxay leedahay 700 iyo 200 dugsi dhexe haddii aan eego waxbarashada dadka waaweyn maba jirin gebigeedaba laakiin maanta waxa weeye 120 xarumood oo dadwey waxbarashada dadka waaweyn waxaa jiray tiifadka ama farsamada hoose maba jirin maanta waxay maraysaa 29 ay may maraysaa gobolka maraysaa dugsiyada hoose ee sare iyagu runtii wax kasta waa sameynay iyaga manhajkoodii waanu sameynay waxaanu sameynay sidii Allah kormeer joogta ay leeyihiin imtixaan joogta ay leeyihiin laakiin waxay u baahan yihiin agabka waxbarasho aad iyo aad xoog u saartay runtii laakiin waxaan u baahannahay kumaankumka arday waxay u baahan yihiin kutub loo sameeyo u baahan yihiin taxi groups u baahan yihiin inay helaan haddaanu la bilaabaynaa waana runtii waxaan idinka rajaynaynaa inaad gacan naga siisaan insha allah midda labaad iskoolashibyada yimaada oo federaal ku yimaada inaanu wax ka helo oo wixii annaga mustaqbalka inagu aan wada qaado laakiin wixii annaga maantay aan qayb ahaan helo in la siiyo waan u baahannahay waa tahay daawadayaal aan dib idinkugu celiyo barnaamijka tixraaca wararka halkiisa inooga sii wadi doono waryahayaga xasan kahaye oo ku sugan magaalada muqdisho aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd wariyahayaga Farxiya Maxamuud Yuusuf oo ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland qaybna ka ah xubnaha ku weelinaya safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka beledweyn hadaan u eegnana cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda Federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan kuba AMISOM ayaa waxa ay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Hiiraan arrimahaasi waxaa warbaahinta la wadaagay taliyaha ciidamada xoogga dalka ee gobolka Hiiraan Colonel Tawani Ahmed aaga u dhaxeeyo degmada beledweyne degmada Maxaas iyo degmada Matabaan dhul buurley oo ku yaalo ay cadawgu waxay isku dayeen inay jidadka ka jaraan magaalooyinkaas ay kala jaraan ay kala googooyaan sida caadada u ah dadkana ku dhibaateeyaan wararkii Muqdisho hadaanu eegnana rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa waxay eedan ballaaran u jeediyeen wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda Federaalka Soomaaliya kulan Muqdisho ay ku yeesheen ayay rugta ganacsiga iyo warshadaha war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda Federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynaysay sidii ay u kala qaybin lahayd ganacsatada Soomaaliyeed kulanka markuu soo idlaaday kadib ayaa warbaahinta waxa arrimahaasi la wadaagay agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha mudane Cabdi Abshir Dhoore bismillaahir rahmaanir rahiim
waxaan rabnaa inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed madaxda waddanka iyo madaxda gobolada war-saxaafadeed ka soo baxay rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo ka soo baxay maanta waqtiga aan idin hadlayno saxaafadeedkaasi wuxuu ku socdaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka gobolka Banaadir rugaha ganacsiga maamul goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya federaalka ah ujeedada war-saxaafadeedkan wuxuu la xiriiraa warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed maalintii xilka laga qaaday wasiirka ganacsiga mudane Khadra isla maalintaas laga qaaday xilka maalinka ka horeysay warqad ka soo baxday oo sumadeedu ay halkaan ay ku xusan tahay war-saxaafadeedkuna waan idin qaybin doonaa arrinka warqadaasi waxa uu ka hadlayaa sidii xal looga gaari lahaa khilaafaadka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed hore ayaan ula wadaagnay ummadda Soomaaliyeed rugta ganacsigu inay tahay rug ganacsi oo madax bannaan hoos tagtana kana mid ah xubin ballaaran ka ah bulshada rayidka ah sidaa darteed waxa aad la yaab noogu noqotay in wasiiradda xilka ka tagaysa ay soo saarto qoraal fidna ka dhex abuuraya ganacsatada ku dhaqan gobolka Banaadir isla markaana aan ku fadhiyin sal sharci ah taasi oo ay si ku meel gaar ah warqadeedu ugu magacaawday xubno aan doorasho ku soo bixin inay sii hayaan xilka gobolka Banaadir magacaabidaas waxa saldhig ay uga dhigtay sharci soo baxay 1985 waqtigaas oo dawladda Soomaaliya waddanka Soomaaliyeed uu ku jiray dawladdii kacaanka ee hanti wadaagga maantana dhowr iyo 30 sano kadib dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya caalamkuba waxa uu ku jiraa suuqa xorta ah iyo maamulka waxaana burinaya waxa ay soo saartay wasiiraddu sharcigii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed warqadii ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha maanta jooga waddanka mudane Khayre iyo warqadii ka soo baxday ee u dambeysay wasaaradda ganacsiga wasiirkii ka horeeyay ayada saddexdaas nidaam warqadihii ka soo baxay oo dhan waxa ay ka soo horjeedaan sharcigii soo baxay 1985 nambarkiisa 22 ee wasaaraddu dhowr mar ay cuskatay sidoo kale warqadda kor ku xusan waxay si toos ah uga hor imaanaysaa dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 16aad dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 23aad iyo dastuurka qodobkiisa 123 farqadiisa afraad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo intaasiba qeexaya suuqa xorta ah ismaamulada xorta ah maamul u sameynta iyo ka qaybgalka qofka shakhsiga ah ganacsatada ah inuu ka qayb galo hadba ururka uu u baahan yahay iyo daladii uu u baahan yahay waxa si hufan oo cad loo wada og yahay in xalinta khilaafaadka ganacsatada gobolka Banaadir maamul u sameyntooda ay gacanta ku hayaan ganacsato magac iyo maamuus ku leh bulshada Soomaaliyeed ee ganacsiga gobolka Banaadir waxa noo cadaatay in wasiiradii hore aysan dhexdhexaad ka ahayn arrinta khilaafaadka u dhaxeeya rugta ganacsiga iyo warshadaha ee gobolka Banaadir sidaa darteed rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ee heer qaran waxay cadeynaysaa in aanay aqoonsanayn qoraalka ka soo baxay wasaaradda ganacsiga iyo waxa uu tilmaamayaba labo waxaan soo jeedinaynaa in ganacsatada loo madax banneeyo in ay si madax bannaan iyagu isku doortaan si loo dhiso maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir si kalsooni loogu qabi karana loo dhiso warqadda ay soo saartay maalintii ugu dambeysay shaqadeeda oo ay xilka ka tagaysay wasiiraddii hore ee ganacsiga waxay caqabad cusub u abuureysaa hogaaminta wasaaradda iyo wasiirka cusub waxay hurinaysaa khilaafaad cusub oo la geliyo ganacsatada gobolka Banaadir oo culeyskeeda iska leh afar inagoo og in waddankeena uu ku dhaqmayo nidaamka dhaqan dhaqaale ee xorta ah ama wax free market economy la yiraahdo waxa nasiib darro ah maamul xumaana ah in ganacsatada oo waddankan laf dhabar u ah noloshiisa iyo dhaqaalihiisa maamulkooda iyo isdoorashadooda faraha lagula jiro iyagoo ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed ee haba yaraatee aan hoos tagin dawladda wasaarad ka mid ah iyo xafiisadeeda aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo amaan Allah hawlaha arlada adilagu aamino umada uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idin kuma arkaysi hela sheego
hay furan idinkuma arkaysin ila adeerko hay furan idinkuma arkaysin ila adeerko min xilkaaday eed qadiihoy min xilkaaday eed qadiihoy awlahaas mada